warshada sigaarka Soomaaliya laanteedii ay ku lahayd magaalada Marka ee Shabeellaha Hoose ayaa hadda waxaa lagu bilaabay burburin iyadoo koox ganacsato ay doonayaan in ay dhistaan si hadhow ay ugu doodaan lahaanshaha dhulka. xaruntaas ee hadda burburinta lagu bilaabay ayaa horay waxa uu joojiyay Allaha u raxmaday gudoomiyihii geeriyooday Cabdullaahi Cali Axmed Waafow, iyadoo isla kooxdan berigaas laga hor istaagay in ay dhistaan kadib burburin ay ku bilaabeen. Guuleed Sheekh Xuseen oo kamid ah dhalinyarada gobol ahaan ka soo jeeda Shabeellaha Hoose haddana ku nool dalka Faransiiska ayaa wuxuu ka hadlay arrintan burburinta ah ee lagu bilaabay xarunta sigaarka laanteeda ay ku lahayd magaalada Marka. wuxuuna tilmaamay kooxdaas in ay doonayaan lahaanshaha dhulka si ay u sheegtaan in ay burburiyaan astaamihii lagu yaqaanayna ay baabi'iyaan. ragga haddaba hawshaasi ku howlan oo magacyadooda uu sheegay waxaa ka mid ah Qaraf iyo sidoo kale Tubaako, ragga lagu naaneyso. wuxuu ugu digay raggan hadda ku howlan arrintan burburinta ah iyo dib u dhiska ay doonayaan inay ku sameeyaan xaruntaas in ay ka baaqsadaan bulshada ku nool magaalada Marka. wuxuu u jeediyay in ay ka dhiidhiyaan oo ay ka hortagaan kooxdan ganacsatada ah ee doonaysa warshada sigaarka laanta ay ku lahayd magaalada Marka xarunteeda oo dhacayo boobka hadda lagu bilaabay. si fiican walaal Faarax horta waa ku salaamay adiga adeecadaba wadin salaamaya bacda salaan anigoo ah Guuleed Sheekh Xuseen oo kamid ah qurba jooga iyo qolqol joogta kamid ah gobolka Shabeellada Hoose magaalada Marka. beryahan arrimo badan baa ku soo noqonayay muddo badanba oo dhismayaal ay leedahay deegaanku leeyahay ama gobolku leeyahay baa waxa ka socday dhibo badan culeysyo lagu sameeyay dad qabaa'il u abaabulan ay sameeyeen ama ay rabeen inay dhistaan oo dhisme ku wadaaniin haddana ay bilaabeen arrinta iyada baan ka hadlaya. waa ay qolada dhisanaysa ujeedada laga leeyahayna maxay tahay arrinta magaalada gobolka magaalada Marka yalla oo ay bilaabeen dad qabaa'il u abaabulan ay disduminna ku bilaabeen bisha cas meesheedii awalna ahaan jiray warshadii sigaarka xilligii dawladii dhexe marka dad odayaala oo abaabulan oo qaab qabiil u abaabulan anaya duminna ku bilaabay aan cidna talana ka weydiin cidna kala hadlin arrinta ay marka dhalinyarada gobolka ama dadka gobolka waxaan meel kasta ay joogaan inay arrintaas sida ugu aan la yeeli doonin ay ka hortagaan talaabo sharciyana ka qaadaan. arrintan hadday soo cusboonaatay markii hore damacyo noocan ma jireen yaasa ka hortaagnaa haddii ay jireen. allaha u naxariisto gudoomiyihii degmada allaha u naxariistay Axmed Cali Waafow baa isku dayadii ay sameeyeen ba u sheegay runta xaqiiqda dhabta ana taabsiiyay asayna ku joogso allaha u naxariistay gudoomiyihii soddon beri buu muuqay soddonka beri uu mutay damac racnaabay la soo shirtageen haddayna tallaabooyinka ku dhaqaaqeen shalay baa lagu bilaabay dumintii iyo dhismihiiba shalay lagu bilaabay marka arrinta iyada baa jirta arrintaasan cod dheer waxaan ku sheegayaa odayaasha gobolka iyo degmada iyo meel kasta ay joogaan iyo qurba joogta iyo cid walba ay khusayso inay tallaabada kaga habboon qaataan la yeeli doonin wax la yeelayana aanay ahayn arrinta iyadaana tallaabo sharci laga qaado. ma waxay doonayaan dumintan hadda ay bilaabeen dabadeed inay dhismo ay ku bilaabaan si ay hadhow tole ay u yiraahdaan dhulka annagaaba leh. waa ku qabso ku qadimaysid sheeko la oran jiray oo socon jiray xilligii sagaashamaadkii gobolka waa la yaqaanaa masiirigiisa iyo cidda degan iyo deegaanka ilaa ciddu makaniyay wax cad weeye oo aan cidna aanay dah kaga qarsoonayn damac wata guracan ay wataanin dad ganacsato sameeyaan oo sameynaya inay dumiyaan wixii raad dawladeeda ama xarun dawladeeda ka dhacda gobolada kaleba ka dhici jirtay inay ku sameeyaan dhalanroggaas socda in lagu sameynayo shaleemadii oo laga dhiganayo meel kubadeed cagta ah oo horey looga dhigtay oo arrinta iyada ay waqti dheer iyo xilli dheerna aan gelinay tanna damacoodii ay geliyeen hadda ayna hadda ka mas'uula odayga la dhaho Qaraf oo magaalada Marka ku sugan dhaqaalaheeda iyo maalgelinteedana isaga qaabilsan isagaana wata mashruuca. yaa ku heliya asagoo Qarafka yaa ku heliya waxa ku heliya dad badan ku heliya dad xitaa ka tirsan gobolka baa ku heliya oo ninka la dhaho Tubaaka ninka la dhaho iyo waxa ku heliya iyo ninka la dhaho Diiwaan oo maaliyadda kamid ah baa ku heliya
marka damacaasay wataanin horena waa ugu suurtageli waaye damacii bay bilaabeen. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xarumo dowladeed oo sidaan oo kale ah horey loo burburiyey dib u dhisna lagu sameeyey inta ugu badan caasimada Soomaaliya oo xarumo ay ku lahaayeen warshado fara badan oo kala duwan sidaasi oo kale loo dhistay meelo badan oo iyana xarumo dowladeed ahaa ayaa sidaasi oo kale horey loo boobay laakiin markii uu yimid gudoomiyihii hore ee magaalada Marka ee qarax ismiidaaminta lagu dilay ayaa wuxuu joojiyey xarumo fara badan oo la doonayay in sidaani oo kale loo boobo waxaana ka mid ah warshada sigaarka xarunteedii ay ku lahayd magaalada Marka oo uu joojiyey dib u dhiskaasi la doonayay in lagu sameeyo hadda kooxdan ayaa markii gudoomiyuhu geeriyooday waxay dib u bilaabeen damacooda ku saabsanaa dhismaha xarunta sigaarka ee magaalada Marka.